uqaasha waxgaradka aqoonyahanka iyo dhalinyarada reer Gabiley ayaa wax taageero u muujiyeen go'aanka ay xukuumadda Soomaaliland dib ugu dhigtay diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxa weeye buka abaara ka dhacay dunyada way socotay dadkii baa imika madaxiisa bilaabmay maadaama caynkaa tahay dee doorasho iyo commissioner qabta ma jiraayo marka waanu taageersanahay barnaamijka la soo jeediyay waxaanu doonaynaa annagu haddaanu gobolka Gabiley nahay dadka yaa kala barbaan foto yaa waraqiiba qaadan sababtoo ah haleel bay waayeen waxaanu ka tirsanay gobolka Maroodijeex waxaanu doonaynaa Maroodijeex shada doorashada laga bilaabayo yaa in annagana la nagu daro oo haraagi dadkayga aan hawshaan hore u qaban yaa in sanduuq xarasiyan doona wassalaamu calaykum كل هالك واحد كتاجر الناقو أنكي مدحوينها إياه قلياش الدجانك قلياش ببرلمان في بوتيا إن قان كاسوحها قان دحركها وحقوا لي مدحوينها إياه قلياشو أن ودورنا إن أيجان دبت إياه هوش الطالب ذلك مركع أي واحد صار غلبان رجبالي إن حول الدبر باحر لي تمر رمي باحر رجنا حير باحر لي حيروح الناس حيروحوا السي مدحوينها إياه بورتيا إن أي دبوا الدجان مدة هديوا يبادأ أبار أما علاو تاسي وحير صوم تدخل حير بوخر صعدا تنكله وحنا تاجر صنع هاي قوان هكا صوب حي قولها جورتي ده يم دحوينها يو كوميشك تكله وحوي عندي نمط كرسي قدري وحلا هاي ده جوار باو بعطيني ويل لشو ده بدنا كده بير محضر يسا إنهم بندل يا بيتي إنهم بيد الشيء هذا الدور كده بير محضر يسا إنهم بيهتر الشيء ده وحلا يدي كالقعيل ويل لو برد على كل انتموي يعني كرسي لو ما فولو ده مغنى صار ده أرض يحيق أرض لو ما فولو كل انتباه سلوا فولو وادوك تنزيله أنت جار أو صار بجار نقطة كرسي عصي سيديات موحي تعود كيسك غتي هذه ما أنت تطلع دمارة يويلو وتخرج دمارة أنت دمارة يعني إنه يتوجينه أنا وحمن قبل ما أنت بال وحمن ما هالله بال وحمن ماها هلو كرديو أو حير كي هلا مرو يعني لا هالو تكله عدسي واحد جيل ورهم أبارها سوى دعين أنا نروح خاطر سنين قبل كم رجح صبر نقول محللي سووا محللي بربرة ولما نفهمي سيدا درادي ما دام إلى هاي بالنص اليود النصيب طاي وحنا هاي صادوق راسنا وصل الله إلى صلاح اللي بنغيو عقله يريد عليه توحي رقم مغنى سأل وبو حسنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا كان مدحوينها يقول يا شباب برلمان كي يقولوا قاتين وأنا تاجر صنعي لكن سرعة الشيء عقلين تيجوا رسائل حل ما نضو طب كهيجي لبق قيبود صدق قيبود مركز لقديكم لبق قيبود ما يستوي قليل وأنا سنة بعريه قد قيبين سووا سوق قيبين وقوي إلا واحد يستوجي فان ولي قبر البحر بيستوجي فان إلا حلقة فودي تقول بيستوجي فان قلنا كيور ريه قد بعرون ما عنده ويد بكاره وحنا dadkii wardooyada dhamaantay dadka hal badbaadiyo dadka kursiga doonayaan dadka codka ka doonayaan xabad baadiyaan oo ha u gurmadaan si degdeg ah u gurmadaan baan leenahay madaxweynaha iyo guurtidu arkay soo jeediyana waanu taageersanahay waananu aqbalay sanaaduuqda dadka si loo diiwaan galiyo dib hana noogu soo celiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi xukuumadda hadii aan reer Gabiley markasta fogoon hogaansanahay waxweeyaan wax aan indhaha laga qarsan karin ay horta jira waxaan indhaha laga qarsan karin waxweeyaan waa abaar aad iyo aad u adag anigu shakhsi baan oo abaarta wax la bixiyay qaylo dheer meel kastaba qayladeedu way gaadhay waxa berigood dhagaan ka maqli jiray abaar oo dhijir daba dheer tana dabarto qaylo dheer baa ka dhacday gobolkan iyadoo ay taasi ugu dhacday hadina diiwaangelintii أتمنى وحنا هيدت أكل عدي بدن أو مركز تبع وحكز أو ماش تكشرة قبل كا سومالنا الهرمضة مدي دنين إن محوها إن ديب لورد جو إن دورسرة واللوجس حسين هاي وحنا اللوجس حسين دار عبارة بجت إن كستوي هالمركين اللي ديواجلنا إن أنا قدمنا لقدوا
haddana taas taa waan galno mar haddii aanu gallay calaacal kama qabno waanu ogolnahay maroodi jeex haddii dib loogu dhigay waxaanu komishanka iyo xukuumadda iyo cid kasta oo danaynaysaba aan horta ka codsanaynaa maadaama ay abaaro adag oo qaylo dheer laydhaa ay nagu dhaceen in annagana hoos naloo eego oo goobaha marka la bixinayo muxuu ahaa hargeysa la bilaabayo kale in annagana goobadna loogu soo kordhiyo maadaama dadkayga ay abaaro aad iyo aad u riiqeen oonu dhinacna kaga jirnay diiwaangelintii dhinacna aanu qofkii iyo sacii aanu wada badbaadinayno ilaaha awoodda le ayaa wax badbaadiyaa laakiin abaartan waa abaar aad iyo aad iyo aad u adag waa abaar aad u culus waxaanu leenahay war cid kasta oo danaynaysa cid kasta oo damqanaysa annagana hoosa noo egto oo hoosa nagu egto maalinta maroodi jeex la furayo waanu ogolnaho ma diidanin maroodi jeexe hoos inta naloo eego hana loogu daro goobo maadaama dadkayga abaaro ay aad u riiqanahayaan wasalaamu calaykum raxmatullah dibta intaa leeg taallo amba abaarta intaa leeg nagu dhacday horena ay komishinku annaga halkii doorashooyinka uu qaranku ka ahaan jireen 6 gobol iyo Gabiley hoos lanoogu dhigay oo aanu arkayno taasi dhibtaasi nagu jirto laakiin haddana aanu kaga soo lug baxnay oo aanu hawshaa u dhabar adeegnay aanan xaq lanoogu lahayn hawshaan aan sheegayaa mid story ay tahay oo hal sanduuqoo keliya ta gobolka intaa lagu soo reebo tiyo ay abaar jirto oo ay dadku maqan yihiin in lanoo kordhiyo muddada aan codsi geysanay aanu komishinku naga aqbalin sideedii ku galnay horta waxaan uga lahaa mar haddii ay la joojiyey oo dib loo dhigayo maalinta la bilaabayo waxaanu xaq in dadkayagii waqooyiga u barakacay iyo dadkii Itoobiya joogay maadaama xuduudaha iyo wax walba naga xidhnaayn aan dib u diiwaangelino waxaan u baahannahay in waxaan taageersanahay in dib loo dhigo maalintaasi la furi doono gobolkaasi iyo hawshaasi laga bilaabi doono in annagana ilaa dhowr sanduuq lanoo keeno gobolka intaa leeg way hagratay komishinku uu hagrado waan ognahay hal sanduuq ku soo celiyay xaq waxaanu leenahay in hoos lanoo eego annagana codsigeega bismillaah raxmaan waxaan kaloo halkan aan doonayaa inaan ka hadlo arrinta xisbiga wadaniga oo kale wallaahi qof ummadda u naxaya amba naxdin ummaddani ay ka haysaa inuu diiwaangelinku si qasbo aanba ku tiigaan maaha xisbiga wadani waxba ummadda kuma taraan kamana caawiyaan yaa laakiin xukuumaddu way ka warhaysaa inkastay waajibkeedii tahay haddana waxaan odhan lahaa kuwaasna naxdin darrada meesha taalla iyo arxan xumada yaa ma ahayn maanta in laga qayliyo amba arrinkaasi aad ka baxdaan oo dibadda uga soo yaacdaan waxay ahayd inaad taageertaan wixii ummaddan aad doonaysaan mustaqbalka inaad wax ka noqotaan inaad ka taageertaan bay ahayd oo idinku ugu horraysaan laakiin waa ayaan darro hadal xumada ma idinka soo yeedhaya leedihiin amba la sii socoto amba waayo xukuumaddu waxay caddaysay inaan laysku wadi karin qarash ku baxaa doorashooyinka iyo qarashkii ku bixi lahaa abaaraha marka xaaladda taalaana waa tii dastuuriya doorashada gebigeedaba dib u bixi kartaa asxaabta qaranka way u tahay tan diiwaangelintuna waa waxay asxaabta qaranku wada leedahay oo aad idinku dantiina ma odhan karnaa kursi unba iyagu rooraya laakiin halkaa waxaa ka muuqata nin kursi ku cararaya dad danka ma laha sidaa odayaasha hore yidhaahdeen iyo xildhibaanadu oon taageersanahay go'aanka golayaasha iyo guurtida iyo maxaanku idhahdaa komishinkuba ay gaadheen dadka waxa dadkii isdiiwaangelin lahaa waxay eryayaan biyo iyo waxay dhadhamiyaan diiwaangelin ma gelayaanba waxaanu haddaba leenay sidaa hore loogu sheegay dib hana loogu soo celiyo hoosana loo eego
si aanu diiwaangelinta uga sii qayb galno dadka iyaga harsan. Wassalaamu calaykum. sida uqaasha hore iyo xildhibaanadu sheegeen waxaan leeyahay maadaama oo doorashooyin coday bixintii dib loo dhigay waanu taageersanahay in dib loo dhigo waanay ku mahadsan yihiin madaxweynaha iyo guddiga komishiga doorashooyinka dib u dhigista waan ku raacsanahay laakiin waxaan u sheegaynaa in dadka iyaga maqan ay la mid yihiin kuwa dib loogu dhigay dadka naga maqan in ay la mid yihiin kuwa dib loogu dhigay ayna sugayaan xaqna ay u leeyihiin in la diiwaangeliyo komishigu sida uu ka yeelayo ha isweydiiyo wuuna ogyahay komishigu waad ogtihiin komishigu in dadkii kala badhu maqan yihiin ay soo noqonayaan marka roobku doo dadka kuwa dib loogu dhigay uma ka mid yihiin kuwa dib loogu dhigay ayay ka mid yihiin marka komishigu ha u diyaariyo wixii xuquuqda kaasi lahaa. waa maxamed xasan sheekh maxamed jubba